maanta waa talaada Soomaal waxa haysataan maantay bariyo Arbaca ah waxaan jeclahay Khamiista ugu dambeys update-ka jadwalka oo activity-ga next week ka bilaabanayo inaan gudbiyo doorashadii phase-ki labaad waa inuu bilowdaa wixii insha Allah subhanahu wa ta'ala waa ku mahadsantahay sabtiga wixii ka bilowdo waa inay activity-winka bilowdaan diyaarinteedii waa la kulmay dhammaan all stakeholders dadka ay qusayso doorashooyinka oo dalka ah dhammaan waa la kulmay shalay ugu dambeysay waxaan la kulmay madasha oo musharaxiinta Soomaaliya waa la kulmay cabashooyin ay soo gudbiyeen oo in la kala argareeyo ah waxa ugu muhiimsan duubabka odayaasha dhaqanka in la cadeeyo mawliida maxiisa waa in la cadeeyaa oo tababarka lagu cadeeyaa shacabka Soomaaliyeed wuxuu naga rabaa doorasho hufan oo cad oo sidii nal muraayad oo kale isaga dhex jeedo ayuu shacabka naga rabaa annagana sidaas aan ugu shaqeynaynaa anigana garbahayga tihiin waa inay doorashada noo noqotaa doorasho hufan oo aan laab lahayn mugdi aysan ku jirin oo anigana waa iga go'an tahay dad baa ila kaftamo waxay dhaheen madasha waa israacdeen oo madaxweynenima waxba ma rajaynaysaa dalbanaysaa weli shacabka oo cadeeyayo doorashadan mas'uuliyadeeda waxaan u qaaday sidii Ilaahay og yahay musharax miihi mana raadinayo waana iga go'an tahay qalbigiina khayr u sheega waxaan intaas u sameeyay inay doorashadan si transparent ah ay ku dhacdo doorashadan aqalka hoose waa xasaasi waxaan rabnaa idinkana idin sheegaya dawlad goboleedyadana u sheegaya saaxiibaday inay ahaato transparent cidna kama yeelayno haday laab gasho way fahmaysi Soomaal waxa waa inay cadaadaan fariintaas waa inay qof kasta oo Soomaali ay gaartaa waa in qof kasta oo kursigaas musharax ah dan ay kaga jirto oo cawada ku saxda inuu kursigaas si xaq ah xalaal ah u raadsado qofna aysan hor istaagi karin